يأجوج يا مأجوج الكيد جوتين dadkaasi halkay joogaan iminka maanta waxaa cirka yaalla boqolaal santilit oo dhulkii u taswiiray shibre taako meel aanan sawir laga hayn ma jiro dadka intaa leg makhluuqaadka haa'ilka intaa leg dhulka dushiisa hadday dul joogaan santilitku qaban lahaa qaar culamaa ka jawaxay wajinka muxuu qaban lahay kuwa jin ma hadda ilma aadani iyaka waxaa laga abuuray laxam wadam raga ilma adeer baan waa ilma nuux idan waa in la arko okay maxaa loo arki waayey yaajuuj iyo maajuuj maxaa tihiin su-aasha koobaad ka jawaabayna waa taa man hum yaajuuju wa maajuuj yaajuuj iyo maajuuj maxay yihiin labo ayna hum الآن maanta halkay ku sugan yihiin saddex waxaan ka jawaabaynaa su-aasha dhahaysa mataa yakhrujuun goormay soo baxayaan yaajuuj iyo maajuuj saddexdaa su-aal baan ka jawaabaynaa في درسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك يأجوج وماجوج ولا ليال أيها الإخوة والله برهر رير وحال هذا يأجوج ريرنا وحال هذا مأجوج أم بس واحد ترهدين والله بقوم يضود ما رير قبيل ما يعني والله بقوم يضود الله بأم ضود والله كذا يأجوج يا مأجوج أوكي يأجوج ومأجوج قرآن كسو أرورين حديث كالنبي جنا سنة رسول كانوا كسو أرورين صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة هدان نحينا نكون ومن عقيدتنا وحينا الرمين بكم يتعين إن الرمينو إن يجران ضد لهذا يأجوج يا مأجوج ضد كاسين أي قيامها كور أدونك إيمان دونان سؤال لكن وحويان wixii intaa ka sokeeya waa la isku khilaafi karaa sida arki doono aaraab badan oo ilaa 7 nin soo ururiyay 12 iyo waa naga daayay way nagu badanaysaa insha Allah taala marka 7 qowl yaan soo ururin okay yaajuuj iyo maajuuj quraanka ku soo arooreen waxay ku soo arooreen laba suuradood oo quraanka kamid ah horta waxay ku soo arooreen suuratul kahf waana ka soo dhiganayna waxay ku soo arooreen aayadda 6 iyo 9 iyo 5 iyo 9 إلهي كتاب كيس أحمد آيات 4 قال النقطة آيات 9 يا 4 أم 4 إلهي وحكوري سبحانه وتعالى سيدنا صارني قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قولوا دي أنا ما هل ذكريان يا مساكين تأها شيخ شعراوي نوحا كده جيستي khawaadirtiisii aadka u muhiimka ahayd maadaama sheekh shacraawi uu yahay culimada tafsiirka ee qarnigan ugu culculus bal waxaan dhihi karnaa marka la yidhaahdo atafsiir albayaani tafsiirka luqadda qarnigan kuwuu buu ka ahaa ninka ugu horeeyo oo lagu gaadhin buu ahaa tafsiirka luqadda sida uu luqadda u kala saarsaarayo albayaani الشيخ يوسف القرضاوي ومعلن وها معهدكي الازهري markuu dhigan jiray mutawassidka iyo sanawiga balaaqadu noo dhigi jiray buuri waxa lagu xaman jiray inuu yahay maraajicda ugu waaweyn ee cilmiga balaaqada ee dalka Masar marka way soo dhalinyara imika markuu dhimanayna maxaad ma leeyahay markuu caalimku bislaadayna marka kelmad buu maalin qaldayo marka baan gacanta taagayo qardaawina isagoo yar buu caalim ahaa marka ma keenay buuri hadalku sidaa maahina saaba ka fiican macallimiinta barigana waa taqaanaayo macallinka haddii la saxo khalad bay u arkaan oo wuxuu yaa rajul idaa anta riix fa ana icsaar yaa idaa anta riix haddaad dabeel tahay anna maxaan ahay buuri icsaar icsaarku waa duufaan oo kale
أبو ضبير يربطها يعني علم يرى ضفانا إعصار مركا بوري إذا أنت أدات هاي بوري مارتي هضبة بورطير فأنا جبل أنا بور وين بنا مركا أسبان مركي لسيني ماشان لهذا الدبي waxa lagu bixiyaa jaa'izada jaa'izatu dubi oo la siiyo sheekhyada waaweyn ee cilmiga diinta u soo shaqeeyay marka sheekh Qardawi markii hore hortiibu qaatay oo la siiyay kadib sanadkii dambe Shacraawi baa la siiyay marka waxa loo yiraahdo Qardawi kelmad buu ka jeediyay marka Qardawi marka buu xasuusiyay marka ardayga xisaaban ka helay wuxuu yiri marka Shacraawi yawma daak maalintaas كنت تلميذي أما الآن فأنا تلميذك أيانتها waxaan ku ahaa waxaad ahayd buu yidhi ardayga laakiin maanta aniga ah arday ragga way basaas ku qira Sheekh Maxamed Al-Ghazali rahimahullah isagoo fadhiya Masar 10 dhigaya iyo Qardawi meesha fadhiyay marka Abu Ghazali hadlay oo as'ila fiqhiya imato wuxuu yidhi wixii fiqhiya Sheekh Qardawi hal weydiiyo marka Abu Qardawi fursaday وحول كنت أستاذه أما الآن فأنا تلميذه شيخ غزالي بعد معلم كيسان هابري لكن ما أنت محان هيبوري أرض كيسان هذا أرض كيسان هيبوري مركا الله يرحمه الرجال ولذلك حصل بنا لك التفسير بو بلعبي مركو النولا وحكب بلعبي ماشو رشيد ريدو كل مي سورة الرعد برمنا سورة الرعد يساقوا مرة تفسيرك رشيد ريدو يودنت حصل بنا بلقول التفسير نوبلو مركا بو بلعبي markaa buu ka bilaabay suuratu racd waxa sheekh maxamed qasbada faatixadii wuxuu yiri niga cilmi badan ba halkaas soo maray oo soo joogsaday suuratu racd markaa Abu Maxamed Ghazali ka qoray maqaal wuxuu yiri ar-rajul la ya'rifuhu illa ar-rajul ninka waxa yaqaano ninka raganimada waa la iska haraa laakiin da Afrika raganimada waa la isku garbiyaa ya sheekh belaha mid alifliya soo kicinaya waalantahay ما عنده ويتوحوا شيء ما قشي حيربود خلط وحاول شيء ما قل يكون شيء مرة باشا وأساس مرة سهل أوكي شيخ شعراوي مرة دقيسني رحمه الله وحوري أصحاب لا يكادون يفقهون قولا وحي كان ينتهي وحبا ما يفهمين ما أف ما أقول ما كان كنت إذا شيخ الكاس وأنا إني معني إن أف أقول لكن اسمي فهمين لبدو دوي مجران قف بني آدم وأدوه النور الأفلهين لقد لقى للهاين بس لقدها كلا عالمي ناقون لا يكادون ما أين أقوم بود ما حيسكوا فهم مكان قالوا يا ذا القرنين بلا سمع الله يعني هل كاسوا معنا يا دوا بليق شيخ مها وحلو يكون معنيين برسيدة كده جهل وحلوهم معنيه وحيد هذا موري نورس وفهمي مركاب مركا وحولي الدلالة تغني عن القول قاعدة بكاني الدلالة وحي وحكو تصيا وحي كاكا في لانتهي إلى هذا الشيء مركا أبو سوق قاعد مركا يرابو لانيقو جامعة كو سعودة لبا علماء سعودة إيو نيو دقالا ومقاحي هرفديو فول إيبينيا إيو فول أدو معانو مصر مركا لقا جعلا مدمسك إيبينيا iyaan aragnay wal meesha lagu buuqsan yahay maqaaxi kala ma galay tan baa la galaya iyo ibine maqaaxidana in dagala marka dadku u yimaadeen waxa uu sheegaya nooca ugu darayo wuxuu ugu dardarayo gacanta uu sheegayaan saas uu leeyahay markuu qofka lacagta ka qaadayo bulacta bix gacan la islama hadlayo dadku soo imanayaan soo ku imikadeen soo loo dul joogo marka baan ayadan xasuustay buu قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض لكنه لقوا حق بدنيه الشيخ شعراوي هل كان رحمه الله إله ونحرجته سبحانه وتعالى مركا آيات كوبادي كسو أرورتي وحنا نبا سورة الكهف آيات سقاشن أفر ما شاء الله بعد كسو أرورتي وسورة الأنبياء آيات يدنا شن يسقاشن أما سقالي شن يسقالي لح وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون إلهي وحده سبحانه وتعالى حرام بين لقتهاي قرية أن هلاقني تدكي أنكو هلاقني إني كسو لامان
meel burburtay dadkii deganaa ay ka yaaceen inay dib ugu soo noqdaan markaan kadib burburinay inay sidii ugu soo noqdaan wax dhici karaya maaha marka laakiinse meel bay kusoo noqon karayaan baa ku hoos jirto idho nin aan ii sheegi doono dhad camraan xusein nin dhahdo oo ku takhasusay cilmiga la yidhaahdo cilmu qiyaami saaca cilmiga saacadda qiyaamihiga amba cilmu ashraadi saaca cilmi dhan buu ka soo saaray waa nin aada u weyn akhdaa badanna uu leeyahy lakin waa nin culus dadkeenu qofku hadduu khalad galo waxay hordhayan waxbaa ka dhegeysan lakin waxaan ku leeyahay akhtaa badan buu leeyahy lakin waa nin culus oon caadi ahayn ninkaas camraan xusein wuxuu sheegay magaalada laleeyahy qaryatin ahlaknaaha waa qudus laba kitaab buu ka qoray alqudsu fi lqur'aan kitaab buu ka qoray iyo kitaab buu ka qoray ru'ya islaamiya fi mustaqbal qudus mustaqbalkeegu siduu noqon doono labadaa kitaabba wuxuu ku sheegay qaryadan ilaahay sheegaya waa maxay waa qudus laakiin isagu yaajuuj iyo maajuuj buu si u maclinaya waa nii sheegi doonaa waa nadariyaadka man hum yaajuuj wa maajuuj meesha iminka joogaan buu kuu sheegi deedo milla waad ka yaacisiin badhukan xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuju wahum min kuli xadabin yansiluun okay meel kasta bay ka soo yaacayaan xadabka waa meel kastoo sarraysa iyo qiyaamaha ka imanayaan buu yidhi okay aayadda labaadina waxay sheegaysaa inay qiyaamaha marka la furo reer yaajuuj iyo maajuuj inay ka imanayaan meel wari oo sarraysa yansiluun iyaga oo ka soo yaacaya oo ka soo daadanaya istisaalku waa daadasho meel sare waxay ka soo daadanaysa daadku meel sare biyaha meel sare ka imanayaan saasay uga soo dhaadhacayaan buur wal iyo magaalo wal oo sarraysa marka iyadana macnaha la saaray waan sheegi doonaa insha Allah taala marka yaajuuj iyo maajuuj quraanka labada meelood bay ka soo arooreen meel kale ku qoran yihiin quraankeena ma jiro marka waa laba mowqic bay ka soo arooreen kitaabka Ilaahay tabaaraka wa taala axaadiis fara badan bay ku soo arooreen laakiin saddex xadiis baan sheegaynaa xadiiska koobaad waxa inoo warinaysa hooyadeen Zaynab bint Jahash haweeneydii rasuulku qabayay radiyallahu anha laba riwaayadood bay ku warinaysaa riwaayadda koobaad waxaan sheegaynaa anna rasuulallahi rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam dakhala calayha maalin buu u soo galay yowman dakhala calayha uu ku soo kor galay yowman maalin fazican isagoo argagaxsan nebigii argagaxsan ayaa soo galay guriga yaquulu dhahaya laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab rasuulku muxuu leeyahay laa ilaaha ila allah carab hoog baa u ahaatay shar soo dhowaaday min sharin qad iqtarab markaa buu ihi futixa alyowm maanta waa la furay min radmi yaajuuja wa maajuuj ayadda quraanka maxay ahayd markay yidhaahdeen sid noo samey muxuu ka yidhi maa makannii fiihi rabbii min fa aciinuunii biquwa ajcal baynakum wa baynahum radma saddan iyo ka yidhaahd isagu muxuu isticmaalay ahayd radma xaggan muxuu yidhi rasuulku radmigii la dhisay futixat alyowm maanta waxaa furay min radmi yaajuuj wa maajuuj waa goorn waxaa la furay waa nebigoo nool waxay furantay intee furantay buu yidhi sal slam misla haadihi gacantiisu saa yidhi oo waxallaqa biasbacay alibhaam walatii taliih yaa suulka iyo gacantii fartii ku xigtay ayuu sidaa yidhi waa la furay qaalat zaynab afariirtay argagax baa ku dhacday anuhlaku yaa rasuula allah wa fiina asaalixuun miyaana la halaagi bay tiri annaka oo dadkii fiicfiicnaana dhex fadhiyaan oo saxaabadii nebigu joogaan dad wanaagsan joogaan oo awliyaa qaala nacam haa waa naga halaagi wuri idaa kahura alkhabath hadday xumaantu badato riwaayadda waa saas riwaayadda kale tani waa dakhala calayha rasuulullah wuu u soo galay yowman fazican riwaayadda kale waxay leedahay qaama rasuulullah rasuulkii baa ka kacay min nawmihi hurdadiisa aw istayqada uu ka baraarugay min nawmihi fazican isagoo argagaxsan buu hurdo ka toosay qaala weylu lilcarabi min shari qad iqtarab xadiiska intiisa kale waa isku mid uu soo galay culamada xadiisku waxay dhahdeen waa laba riwaayadood oo wada saxa labaduna way dhaceen marna wuu soo galay waa nafsu marna hurdu ka kacay okay xadiiska labaad abi hurayra inoo warinaya radi allahu canhu waa saxiix nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam futixa alyowm maanta waa la furay min radmi yaajuuja wa maajuuja mithla haadih yaa la furay markaa uu nebigu sal slam yidhi xadiiska raggii wariye waheeb ninka dhahdo
sagaashan ayuu sheegay, yani sagaashan sano may tahay ma sagaashan cishay tahay, sagaashan buu isaguna sheegay ninkaasi. xadiis kale oo saddexaad nebiga sal alla ly salam saxaabo badan ay ka warinayaan, wuxuu yihi nebigu subixii markay ree Yaajuuj oo Maajuuj soo toosaan shaqay galaan, meeshii bay dumiyaan, marka ay in yar u hadho unbay habeennimada yidhaahdaan shaqadii way naga dhamaatay, qayimkoogii ninkii maamulayay unbaa ku yidhahdaa beritoolaan soo noqona, intar bay noo hadhay ay noo beritooleen, way laamaan ilaa markaas lagu xidhay meesha ilaa imika. wuxuu yidhi markaa ayaanta ugu dambaysa unbuu oran doonaa qayimku hadda qayim ilaa markii waaray maahan, waa kolbadinba hogaamiyey leeyihin, hogaamiyaha maalintaa nool buu ilaahay waafajin dhahdo beritoole insha allah, beritoole insha allah iyaan intay noo hadhay dhammeena ayaantaa bay soo noqonayaanoo meeshiio ila markii hore waxay soo kacayeen meeshiio dib u dhisantay, sidiisi kaadga noqotay. ayaantaa waxay soo tayaan meeshiio intii joogta intii bay ka takhalusayaan, way soo dareerayaan. markay soo dareeraanna halkaa baa laisku haleeli raggaatay. ayaantaasi markaa maxaa badbaadisay insha allah, insha allah inuu yidhahdo muslim baa mise muslim maahina waa la waafajiyeen, waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala. okay, marka maxaan soo aragnay saddex xadiis iyo maxaan soo aragnay iyo 2 aayadood oo quraan ah. okay, Yaajuuj wa Maajuuj maxaa tihiin cinda ahli alqur'aan wasunna, dadka diinteena haysta maxay ka yihiin? 2 qowl baa jira. qowl waa daciif laakiin waan sheegaynaa cilmiyan, qowlna waa qowlka saxda ah ama loo badan yahay. dee qowl saddexaadna imika uu soo baxay, ka saddexaadna waa sheegi doonaa dad duutiin. qowlka koobaadii waxa weeye odaygii Nuux calayhi salaam ee nebi ahaa ay ka tafiirantay albashariyatu fi lmarati asaaniya, siday culimmadu u badan yihiin, wuxuu dhalay 4 ubada, 3 duufaankii ka dambaysay iyo mid duufaankii u qaaday, soo maahin. okay, 4tii ubaduu dhalay Yaafith iyo Xaam iyo muxuuha iyo Saam, soo maahin. okay, iyo Kancaan, 4taa buu dhalay nebi Nuux calayhi salaam. Kancaan waxaa qaaday duufaankii, waa wiilkii waa sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa, uu ka yidhi laa caasima alyawma min amri illaah, ee lagu gabagabeeyey fakaana min almuqraqiin. okay, kaasi taran ma waxba kama hadhin, laakiin 3dii kale taran baa ka hadhay, Xaam iyo Saam. anagu waxaan nahay reexaam, soomayn saam u taqaana sheekha. okay, soomaalidu waa reexaam iyo maaragtay iyo dad badan xataa cadaan badan baa dadkeena Xaam weeye. Saamkuna waa saamistka, waa yuhuudda iyo wixii cadaanka waxaa sheegtay. Yaafith waa Turkidii iyo shucuubta Eurobiyaanka iyo reer Yaajuuj iyo Maajuuj. marka Yaajuuj iyo Maajuuj waxaa dhalay Yaafith, waa ina Yaafith. marka Yaajuuj iyo Maajuuj waayo waa ilmo Yaafith. okay, turkida walaalihii baa dhaa marka waqiila waxaa dhaha turkida halka aabbahay walaal ka yihiin. walidaalika buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiska weyl carab min sharin qad iqtarab, qaar baa ku macneeyey carab waxaa halis gelin doonta waa turki qaar baa ku macneeyey. calaa ayati xaal macnahaas waa sheegi doonaa isaga. marka maxaa odhanay qowlka koobaad maxay? waa ina labadan waa ilmo Yaafith soo maaha. okay, waxaa dhalay Yaafith, halkaabay abtirsiintii cilmigii anthropologiga ahaa iyo ajnaas albashariya bini aadamka markii loo abtiriyey halkaasay galeen. okay, الرأي الثاني رأي labaad waa ra'yi daciifa. maxaad u sheegtay waan dhihi kartaa, lakin waxaan u sheegaynaa waa ra'yi jireec. ra'yigaa waxaa qaba ninka la oran jiray Kacab al-Axbaar. Kacab al-Axbaar ayaa tahay ilaan si hadhow u garana. Kacab al-Axbaar waxa weeyaan waa yahuudi islaamtay oo reer Yaman buu ahaa. wuxuu islaamay casrigii amba cahdigii Cumar radia allaahu canhu, wuxuuna islaamkiisuna u fiicnaaday. cilmi fara badanna waa laga dhaxlo. Kacabul Axbaar baa saa loogu bixiyey, waa wadaad. axbaar macnaha waa xibre, waa xabr lumma, sidaas loo oran jiray ibn Cabaas, waa axbaar. ina kasiira min alaxbaari waruhbaan, soomaali qur-aanka. marka waa xibre, waa xabri, waa caalimi weeyaan. xibri haddaan kasra ka dhigno waa khadka weeyaan. xibro waa khadka, waxaa lagu dawaadi soo ma garano, waa xibri. haddaan xabri ka dhigno fatxa ka dhignana waa caalimka weyn. marka axbaarta kacbul axbaar baa dhahda, waa la yaqaana. kacbul axbaar markaa xadiisaan fara badan buu wariyaa, saxaabadu ka maqlay uu wariyaa.
xadiisaan uu saxaabada ka maqlin oo cilmi badan oo dadkii hore ka hayna uu sheegaa marka waxa loo baahan yahay waxa uu wixii hore ka maqlina isagu ma ahayn baad beenaale cilmiga been kama sheegin kacb al axbaar laakiin se akhbaar kadib marka qaarkood sheegi jiro ay qabeen ahlu kitaabki ayuu sheegay dadka qaarkoodna way ka qaadanayeen markaa degdeg waxaa ka mid ah riwaayadan aan sheegayo wuxuu yidhi habeen buu ictilaabay amba ixtilaamay siduu u yaqaano nebi aadan calayhi salaam markuu ixtilaamay amba ictilaamay biyihii ka daatay baa ku daatay ciidda markay biyihii ciidda ku daateen oo hurdadii ka soo kacay buu cadhooday maxaa biyahaagii kaa soo saaray cadhadii biyihii waxaa ka abuurmay biyihiisii iyo caradii istaabatay يأجوج iyo مأجوج marka asalka يأجوج iyo مأجوج waxa weeyaan waa ilmo aadan laakiin halka hooyada waa ilmo dhago fama garan okay waa ضعيف laba waradina horta la quraan sheegay ma jiro wala xadiis sheegay saxana ma jiro marka ma qaadanino maxaa yeelay asalka ilaahay markuu abuuray sibuu abuuraa wax ka duwan isaga noo sheegay saddex qof baan haynaa oo saa ka duwan oo ilaahay abuuray وأبيهن آدن يهويدن حواء iyo مريم عليه السلام وحوجة عيسى يعني مريم وابور بس مد بلا آباء مد بلا أبي بلا هوية يمد بلا آباء ومارتي حوجة بلا هوية وحواء يمد بلا آباء عيسى عليه السلام مركا عقل نقلي ما هن عقلي ونا وديد يايو يعني بي كداتو بيا لغا أبوري ودول قرايو ما وحاسي واحد يعني maskaxana maaha marka wax la aqbali kara maaha sidaa daraadeed hagee ka yimaada yajuuj maajuuj riwaayadda hore saxiixa qolo saddexaad waxay sheegaan makhluuqaadkii ku horeeyey aadamiga qolo la oran jiray maaragtay qolooyinkan la yidhahdo al-insaan al-awwal ay gaaladu yidhahdaan ninkii hore kani qofka raanta le xadiisaan baa sheegaya inuu timahoogu xadiisaan saxiixa sheegaya inay timahoogu ay huwadaan timaha jirku ka soo baxaya way huwadaan xadiiska wuxuu sheegayaa dhagahooga iyo dhakan u soo rogtaan ay ka dhigtaan makhadad yani waa makhluuq askar asoo markaad u fiirsatid xadiiskana waxba laga yiri laakiin xadiiska uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam saxiix yiri wajigooguna waa balaaran yahay indhahooguna way yaran yihiin timo dheerna way leeyihiin dadkaasi marka wax u eegin dadkan asiatiga dheerti u eegin marka iyaga ma laakiin xadiisku soo sheegay isku ekaan karayaan okay marka saa marka waxa uga jeedaa waxa weeyaan reerkani la yiraahdo marka Yajuuj waxa leeyahay waa qolooyinka baqaayaadkii ka hadhay oo bini aadanka ay soo gaareen waqtigii Nabi Ibraahim oo la noolaa dadka la dhibayay markaas bay laga ashkatooday saas uu ka sameeyay laakiin iyaduna wax saxiixa maaha okay waxaan garanay agay ka yimaadeen oo isla faanay waxaan imanaa su'aashii labaad dadkaasi halkay joogaan iminka يأجوج يا مأجوج الكيد جوجتين أريتها معي نقول قصبيسة لو مسألة ضد نقول قصبيسة المسألة الأولى إن نقول قصبيسة وحويان علوم دي إني جغرافيا يا مسلمين تاهي يا سمايسة خريطة كارتك أدونك أنتي أين صوبين كولومبس يوحنا ممكن لغا شاكي وحاجري جري هذا إدريسي وحاجري جري مسعودي وحاجري جري أبو ابن حوقل وحاجري جري وكرو آدو فربضان وعلوم هذا لرادو علماء خريطة كارتيكا سمية جغرافيا waxay sameeyeen juqraafigii bay daba gureen meeshii laga helayay reerkan la yiraahdo Yajuuj iyo Maajuuj sida inoo wadeen unba meelina wada geeyeen intooduba Idriisi kitaabkiisa kharaa'ida Mas'uudi kitaabkiisa kharaa'ida Ibn Hawqal kitaabkiisa kharaa'idka sidoo kaartigi inoo waday unbu Siberia dhaafiyay Siberia la soo taqaanaan unbu sida inoo dhaafiyo ma orande halkan weeyaan war wuxuu waa meelaha ragga meelahan baa laga helaya meelahan ragga meelkii laga doodoorina inahan baa laga helaya taasi waa mid koobaad ee nagu qasbaysa inaan orno wareey Yajuuj Maajuuj halkeed fadhidiin ragga ma raacaynaade say inoo wadaan ba meel lageynay markii doona insha Allah taala arinta labaad ee nagu qasbaysa Yajuuj Maajuuj maxay wax weeyaan maanta waxa irka yaala boqolaal santilit oo dhulkii u taswiiray shibre taako
meel aanan sawir laga hayn ma jiro Yaajuuj iyo Maajuujna xadiis baa leh markaa 400,000 bay yihiin kow qofku wuxuu noolaadaa 1,000 sano labo waxa jira qofku ilaa uu 1,000 dhalo ma dhinto waxaan jeedaa ku sama ilaa uu 1,000 qof dhalana oo reebana ma dhinto dadka inta laga makhluuqaadka haailka inta lag dhulka dushiisa hadii dul joogaan saantiladku qaban lahaa qaar culimo ka jawaxeen oo jinka muxuu qaban lahay kuwani jin ma hada ilma aadani kuwani ilaahay ma oran jinka ilaahay wuxuu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum innakum ma arkaysiin iyaka qabiilkooga laakiin innakum ma arkaysiin iyaka iyaku kuma jiraan de iyaka waxa laga abuuray laxam wadam raga ilmaadeer baan waa ilmo nuux ida waa ila arko okay maxaa loo arki waayay su'aasha baa nagu qasbaysaa maxaa loo dhulkii waa la wada arkay bariyo dhulka lama wada arkay laakiin waa la wada arkay meel qarsoon ma jirto okay rag beedi meelaha qarsoon oo la arag laakiin meelaha qarsoon ee la aragna macnay ka soo saarino waa sheegi doonaa nooma cajiib wada marka waxa inagu qasbaya waa taa weeyaan koonkii oo dhan waa ka waa la horjoogaa waa la eegayaa santilidkii waa duulaya ayaa tirada sheekha kan fadhiyo inaga maqaya shacab baas wuxuu sheegay kelmad oranaysa diyaaradii Malaysia maxaa loo arkay diyaaraddu waa diyaarad yarde shacbi dhan xadiiska nabiga u fiirsada qiyaamaha rasuul wuxuu soo saxaabada taa wala fadhiya masjidka yuri maalintii yawm qiyaamaha ilaahay ba hadlaya ya aadam aadanow ilaahay ornaya labbayka wa sa'adayka ya rabb ornaya labbayka wa hu hay wa sa'adayk wanaag bacda wanaag ba ilaahu ku suganay maxaad iga rabtaa ornaya ubadkii ka tafirmay he kunkiiba 999 cadaabta gee oo ubadkiisi ma cadaabta gee baranaya markaa bay saxaabadii wada naxani wada ooyeen xaraam kunkiiba qof ba jannada galay intii cadaabta galayaan rasuulku markuu arkay saxaabadii inay qaadi karin xooli meesha waxa ku jira Yaajuuj iyo Maajuuj markaa Yaajuuj iyo Maajuuj maxaad u ka tihiin buu waxba kama tihiin okay waxaad ka noqonaysiin buu ummadaha adduunka oo dhan sida faras hal dhibic oo cadle waxaan rajeynayaa inaad noqotiin jannada rubuc marka jannada afar loo qaybiyo meelahan inaad idinka noqotiin way farxeen ilkaha soo baxay wuxuu rasuulku waxa la hadlay Jibriil isagoo ma alifayay waxa deeynaa sulus saddex meelood meel way farxeen wa arju an takunu nisfa ahli janna dadka jannada galaya marka laba loo qaybiyo inaad qayb noqotaan baan rajeynayaa هذه أمة مرحومة أمة النبي محمد محمد أمة الله نحرستي ويه صلى الله عليه النبي قال هبين كيو أوي اللي قيلي أدقوا ولا سوف يعطيك ربك فترضى وهنت مجوجين وحالو قيلوا أمة هذا وانكارها لقلينين إلا أنت أقوب بدن جنادك ودا حركتي أمة هذا جنادك ودا حركتي أنت أقوب بدن مركب وانكارها لقلنا رسولك مركب رسولك وهنتي جوجي وفرحي صلى الله عليه وسلم أوكي